mid ka mid ah beelaha dega Puntland ayaa ku caleema saartay Suldaan Cali Siciid Samatar iyo Caaqil Cabdirasaaq Xaaji Caawil oo ka mid noqon doona ismada dhaqanka Puntland. Caleema saarka suldaanka iyo caaqilka waxaa ka soo qayb galay salaadiin, cuqaal, waxgarad, abwaano oo ka kala yimid deegaanada kala duwan ee dalka. Caleema saarka suldaanka ayaa waxaa lagu qabtay duleedka magaalada Garowe, taasi oo si heersar ah loo maamusay, waxaana soo dhaweyn iyo bogaadin laga jeediyay goobta caleema saarku ka socday. iyadoo kooxaha hidaha iyo dhaqanka goobjoog ka ahaayeen abwaanada dhaqanka oo tix iyo tiraab ku cabirayeen caleema saarka suldaanka iyo caaqilka. dhammaan salaadiintii iyo nabadoonadii ka hadashay ayaa soo dhaweeyay, sheegayna inay garab taagan yihiin lana shaqayn doonaan suldaanka cusub iyo caaqilka. beesha suldaanka leh waxaa la yiraahdaa beesha Cumar Muuse Faarax Saleebaan Cabdalle Suradir. waa beel waxay deegaan ku tahay oo guurto iyo maguurtaba ku leedahay gobolada Bari, Karkaar iyo Nugaal. waxaanu halkan idinku soo bandhignay suldaan aanu ka soo fekeray muddo badan soo turxaan bixinaynay si wanaagsan iyo si intaa kadib waxaanu codsanaynaa beelaha Puntland deegaamada Puntland degan ay u ballaaran yihiin beelaha Harti, Yuusuf Daarood iyo Tanada Daarood. waxaanu ka codsanaynaa inay si wanaagsan noola qaabilaan, noola aqbalaan, noona soo dhaweeyaan, meel fiican noo fariisiyaan haddii alla yidho. annagu waxaanu waafaqsannahay oo qabnaa in dadka magaca daaroodka sheegtaa uu dul soo dhaweeyo oo ehel ay yihiin. maamaa Soomaaliya jirta, maamaabaa jirta. waxaa la yidhi meesha madaxaagu ka soo jeedo iyo meesha minadaadu ka sii jeedaba waa la xurmaya. waa abtiriska hooyada iyo xididka iyo ilmaha. ku ansixinay, waa kugu ducaynay, waana idinkula shaqaynaynaa. suldaanka waxaan leenahay Soomaali u ducee. Soomaali meel daran bay maraysaa. Soomaali u ducee. maanta adiga qoyan. suldaanka beesha noo keentay oo waalidka ah waxaan leenahay sida odayaashii hore u yiraahdeenba suldaanku wuxuu u baahan yahay inaan laga harin. midda labaad waxaa muhiim ah in awaamiirtiisa la qaato ama amarkiisa la qaato. anoo afkaygii iyo afka beeshaba ku hadlaya Cabbaas Muuse waxaan leeyahay suldaanka waxaan u sidaa soo dhaweyn, hambalyo iyo bogaadin. aniga waxaan ka imaaday gobolka Jubbada Hoose Kismaayo. haddaa igu imaatiin nin idin aqoonsan oo maantiin la dooran aad lagu idin doorinayo ogaabaan ah waa idin soo dhaweynaya. qaaliga ay kuwiyeen hagar la'aantiyo siday kugu hagar baxeen hal doorkiiyo madaxda dhaqanko halkaan fadhida shacabka ku heelan oo holka ku camiray looma kala harin maandhowhiga ku hay oo hayaan dheerbaa ku sugaye hurdada ka too. ugu dambeyntiina waxaa caleema saarka kadib goobta ka hadlay caaqil Cabdirasaaq Xaaji Caawil iyo Suldaan Cali Siciid Samatar. waxay la tahay isin la doortaa tiir ummadda u dhaxa weeye. ilaahay kii xaqa ajiibahoo sidii kuwa hore ilaahay waafajiyo, ummaddana xaqa ugu yeeraa ilaahay ha iga dhigo. intaa kadib ilaahay idankiis waxaan ka wada shaqaynaynaa midnimo, wada tashi, sinaan, horumar iyo daacad. ilaahayna waxaan ka baryayaa intaan isu timiyo inta maqanba wax wanaagsan ilaahay inuu isugu soo dheelmo, istuso walaalnimadooda iyo ehelnimadooda iyo midnimadooda ilaahay kor u qaado. Cabdishakuur Yaasiin Aadan, wararka Home Cable, Garowe. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.